Assalaamu calaykum asxaabta meel kastoo aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena galka ciyaaraha qodobada ciyaaraha caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Manchester United iyo Chelsea oo ku tartamaya saxiix xidiga Federico Chiesa oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Fiorentina. Kooxda kubadda cagta PSG oo bedelka Thiago Silva ka raadinaysa horyaalka Serie A-da. Waxaa kaloo idin haynaa muuqaalo la soo dusiyay oo muujinaya kooxda Premier League oo lagu qoray magaca kooxda kubadda cagta Liverpool. Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona afarta kulan ee soo socota oo horyaalka La Liga labada kooxood lagu kala saari doono. Wararkeena kala caawa waxaa ka mid ah N'Golo Kante oo dib ugu soo laabtay tababarka kadib markii uu u maqnaa xanuunka caabuqa coronavirus. Wararkaas iyo wararka suuqa kala iibsiga oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. Kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena qodobada oo faahfaahsan. Federico Chiesa ayaa la sheegayaa inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta Fiorentina iyadoo kooxaha reer England ee Manchester United iyo Chelsea ay ku tartamayaan saxiixiisa. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo sheegayaa inay ku dhowdahay weeraryahanka naadiga Fiorentina ee Federico Chiesa sida uu waramay wargeysyada qaar. Chelsea ayaa sidoo kale xiiseynaysa ciyaaryahanka lagu qiimeynayo adduun dhan 60 milyan oo geni, taasoo u dhiganta 75 milyan oo dollar. Milkiilaha kooxda kubadda cagta Fiorentina Rocco Commisso ayaa sheegay in xidiga garabka kaga ciyaara ee Federico Chiesa uu ka tagi karo kooxda kubadda cagta Fiorentina inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee soo socda. Tan iyo markii uu xirfadiisa sare u soo qaaday, Viola 22 sano jirkan ayaa dhaliyay 29 gool kaasoo u saftay 139 kulan tartamada oo dhan. Soo laabashadaas oo sidoo kale ka dhigtay in uu aqoonsi caalami ah ka helo dalka Talyaaniga. Chiesa ayaa heshiiskiisa haatan uu kaga harsan yahay 2 sannadood ayaa horey u soo jeediyay inuu diyaar u yahay inuu sii joogo magaalada Florence hal xilli ciyaareed oo kale. Markana horyaalka Premier League. Maamulka horyaalka Premier League ayaa u diray inay Liverpool siiyaan koobka, waxaana muuqaalo la soo dusiyay ay muujinayaan in magaca kooxdaas lagu qoray koobka. Liverpool oo 25 dhibcood ka horeysa kooxda kubadda cagta Manchester City ee ku jirta kaalinta labaad ayaa waxay markeedii ugu horeysay muddo 30 sannadood ah kadib ku guuleysanaysa koobka, iyadoo kaliya u baahan inay hesho 6 dhibcood kulamada soo socda. Manchester City oo kaalinta labaad ku jirta ayaa haddii ay kufto oo Arsenal ay ku kufto marka ay la ciyaareyso Redska ayaa waxay u baahnaan doontaa inay kaliya ay ka badiso kooxda kubadda cagta Everton kulanka ay la yeelanayso June 21-deeda. Garoonka Goodison Park ayaa noqon doona meesha ay ku dabaaldegi doonto xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Liverpool. Wararka ayaa sheegaya muuqaalo la soo dusiyay oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan maamulka Premier League oo ka sii shaqeynaya sidii Liverpool koobka loo siin lahaa. Maamulka ayaa waxay u soo bandhigeen koobka Premier League oo lagu qoray magaca Liverpool maadaama aanay cidna ku qabsan karin koobka oo aan loo soo dhaweyn. Warar kale idin hayno waxaa ka mid ah sida wararka ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee PSG ee ka dhisan caasimadda waddanka Faransiiska ayaa bedelka Thiago Silva waxay ka baadigoobaysaa horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-da. Thiago Silva ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda kubadda cagta PSG marka uu dhammaado heshiiskiisa haatan ee kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska. Warar kale caawa idin hayno waxaa ka mid ah sida wararka ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee PSG ee ka dhisan caasimadda waddanka Faransiiska ayaa bedelka Thiago Silva waxay ka baadigoobaysaa horyaalka Serie A-da ee dalka Talyaaniga. Thiago Silva ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda kubadda cagta PSG marka uu dhammaado heshiiska haatan ee kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska. Wargeyska reer Talyaani ee Calcio Mercato ayaa rumaysan in PSG ay diiradda saartay inay bedelka Silva ka raadiso waddanka Talyaaniga. Daafaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly ayaa liiska daafacyada doonayso PSG fitka sare kaga jira, halka Milan Skriniar oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo Alessio Romagnoli oo u ciyaara Milan u safta ayaa sidoo kale noqon kara daafacyada ay xulan karto. Daafaca Manchester City ee John Stones ayaa isaguna waxaa suuragal ah in uu ka mid yahay xulashada daafacyada ee PSG ay sameyn karto.
laakiin kooxda Faransiiska waxa ay awoodeeda isugu geynaysaa inay beddelka Thiago Silva ka hesho waddanka Talyaaniga. Asxaabta weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii galka ciyaaraha. Fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana taaba si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee fariimaheena usoo dhaca. Markanna horyaalka dalka Spain, kooxaha Real Madrid iyo Barcelona afarta ciyaarood ee ugu soo horeeya horyaalka La Liga oo labada kooxood lagu kala saari doono. Waxaa la ogyahay labada kooxood inay u harsan yihiin min 11 kulan xil ciyaareedkan ayaa dib loo bilaabi doonaa 13 bishan June, waxaana ciyaari doona kooxda Barcelona iyo Real Mallorca. Mar kale Real Madrid waxay la ciyaari doontaa Eibar 14 bishan June. 16 bisha June waxaa dib u ciyaari doona Barcelona iyo Leganes, halka Real Madridna ay la ciyaari doonto kulanka shubka ah ee Valencia ee la yeelan doonto. Kulamada 30aad iyo 31aad Barcelona waxay la ciyaari doontaa Sevilla iyo Atletico Bilbao, halka Real Madridna ay la ciyaari doonto Real Sociedad iyo Real Mallorca. Laakiin Zinedine Zidane wuxuu haystaa fursad maadaama uu ka hor inta aysan ciyaarin Real Madrid uu heli doono natiijada kooxda kubadda cagta Barcelona ka soo baxda. Si kastaba ha ahaatee, afarta ciyaarood waxay Real Madrid heli doontaa iyadoo og natiijada ay Barcelona heshay, waxayna taasi fursad weyn u tahay kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo tababare Zinedine Zidane. Markana wararka suuqa kala iibsiga, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa go'aansatay inay yoolkeeda saarto si ay ula soo siixan lahayd weeraryahanka kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen iyo xulka qaranka Jarmalka Kai Havertz oo sanadkan wacdaro ka dhigaya horyaalka Bundesliga. 20 jirkan ayaa Chelsea aad u baadgoowaysa xilli ciyaareedkan. Chelsea ayaa horyaalka Jarmalka wax badan ka aragtay. Evertonna waxay u dhaqaaqi doontaa kabtanka PSG Thiago Silva kadib markii ay kooxdiisa go'aansatay in ay heshiiska u cusboonaysiin doonin. Xiddiga reer Brazil ee 35 jirka ah ayaa la sheegayaa inuu ka dhaqaaqi doono xagaagan kooxda kubadda cagta PSG. Arsenalna waxay weli doonaysaa inay la soo siyaxato laacibka qadka dhexe ugu ciyaara ee reer Spain Marco Roca oo ah 23 jir u ciyaara kooxda kubadda cagta Espanyol. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus iyo xulka qaranka Argentina ee Paul Dybala oo 26 jir ah ayaa sheegaya in ay fiicnaan lahayd inaan u ciyaaro kooxda kubadda cagta Barcelona. Manchester Unitedna waxaa la sheegayaa inay ku fashilantay dalabkii 89 milyan oo gani ahaa oo ay ka gudbisay daa'irka Barcelona ee Ansu Fati oo 17 jir ahaa kadib markii ay joojisay doonisteedii weeraryahanka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho. Wararka Henry Mkhitaryan waxay sheegayaan inuu rabo inuu sii joogo kooxdiisa Roma ee hadda uu u ciyaaro maadaama ay leedahay milkiyadiisa kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Wararkeena kale ee suuqa waxaa ka mid ah Blues waxay mar kale ku loolamaysaa Tottenham iyo Borussia Dortmund. Ciyaaryahanka 23 jirka ee reer Brazil Gerson oo qadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Flamengo ee waddankaas Brazil. Wararkeena suuqa kala iibsigana waa naga intaa. Asxaabay sidaas iyo nabadgelyo.